safiirka somalia ufadhiya dalka qadar mudane cabdirasaaq cali taano ayaa ka warramay xaaladda dhaawacyada lageeyay dooxa isagoona sheegay in qaar ka mid ah dhaawacyada ay xaaladooda caafimaad soo hagaagayso halka kuwa kalena ay ku jiraan qaybta daryeelka gaarka ah ee loo yaqaan ICU-ga. safiir cabdirasaaq taano ayaa u warramay warbaahinta qaranka waxaanu sheegay in dhaawacyada oo ahaa 23 qof la geeyay isbitaalka dhexe ee dawladdaasi qadar oo loo magacaabo Hamad Hospital, waxaana intaasi raaciyay in laba ka mid ah dhaawacyadaasi laga soo saaray isbitaalka isla markaana ay hadda yihiin bukaan socod. danjire cabdirasaaq ayaa sheegay in dadka la keenay dalka qadar ay qabeen dhaawacyo kala duwan oo qaarkood darnaayeen muddada ay isbitaalka ku jiraan ay helayeen daryeel caafimaad oo wanaagsan, waxaanu intaasi ku daray inay si guud uga warbixin doonaan maalmaha soo socda xaaladda dhaawacyadaasi. safiirka ayaa tilmaamay in safaaraddu ay u taagan tahay inay garab siiso hadh iyo habeenba dhaawacyadaasi. sidoo kale tan waxa uu sheegay in jahliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi qadar ay kaalin ka qaateen caawinta dadkaasi la keenay dooxa. maxamed axmed cabdullaahi warbaahinta VOS Hargeysa.